السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشر عصب وaynu ku eegno qaabka lagu shaqeeyo Excelka marka la xisaabinayo shaqaalaha salarigooda ama shaqaalaha biilkooda marka la xisaabinayo marka sida lagu shaqeeyo Excelka ayaynu eegi doonaa inagoo tusaalahan soo qaadanay warshada caanaha geela samaysa ee Somaliland xafiiska shaqaalaha warshada caanaha geela marka waxa weeyaan si loo xisaabiyo monthly-ga biilka ay qaadanayaan ama lacagta ku shaqeynayo qof kasta oo shaqaalaha ka mid ah sida lagu shaqeeyo Excelka ayaynu example-kan ku eegi doonaa halka waxa ka muuqda waxa weeyaan name ama employee name waa shaqaalaha magacoodii ama shaqaalaha magacyadoodii halka ka muuqda shaqaalaha magacyadooda ayaa halka ka muuqda shaqaalaha magacyadooda halka ka muuqda halka waxa ka muuqda waxa weeyaan waa job title weeye halkaasina waxa weeyaan job title qof kasta oo shaqaalaha ka mid waxa weeyaan job title-kiisii job title qof kasta shaqaalaha ka mid waa job title-kiisii amba waa job title-ka shaqaalaha halka waxa weeyaan hours waa saacadaha shaqeynayeen qof kasta waxa weeyaan inta saacadood ee uu shaqeynayo qof kasta waxa weeyaan inta saacadood ee uu shaqeynayo weeyaan halkan waxa weeyaan rate per hour waa saacadiiba intuu ku shaqeynayay weeye qof kasta oo shaqaalaha ka mid ah saacadiiba intuu ku shaqeynayay weeye uu qaadanayay rate per hour-ka marka waxaan soo saari doonaa waxa weeyaan gross salary baan soo saari doonaa cashuur haddii ku waajibtay cashuurtaynu waynu cashuuri doonaa haddaanay ku waajibin cashuurta waynu iska dhaafi doonaa sidoo kale charge waxa weeyaan haddii la ganaaxo wixii lagu ganaaxayay ee shaqaalaha amba habsaama amba si ma garanaysaa sharci darraa iskaga maqnaadaba wixii lacagta lagaga goosanayay wixii qofka shaqaysanaya lacag ah ee horumarina ee la siinayay net salary-guna waxa weeyaan mushaharka u soo xaasil garoobay intuu qaadanayo marka intaasoo dhan la xisaabiyo intuu qaadanayo ayaynu xisaabin doonaa markaan soo saarino gross salary-ga waxaanu ku soo saari doonaa equal markaan taabano waxaynu ku dhufan doonaa 12 saacadood u shaqeynayay waxaan odhan doonaa waxaad nagu dhufataa saacadiiba wuxuu qaadanayay ninka la idhaha Farxaan Maxamed Jaamac oo machiner driver ah wuxuu qaadanayay 1.50 centi amba 1.5 centi ayuu qaadanayay ayadana waynu kala garay doonaa waxaynu ku dhufan doonaa bishii oo 30 cisho ayaan ku dhufan doonaa marka inter baan siin doonaa marka inter siino halka waxa inooga soo baxay waxa weeyaan $540 marka waxa weeyaan intuu qaadanayay weeyaan gross salary-gaasi haddii aynu xisaabino ninka ku xiga oo ah Cismaan Yuusuf Cabdilaahi oo package wuxuu shaqeeya waxa weeyaan 8 saacadood oo lagu dhuftay $1.5 oo lagu dhuftay 30 cisho shaqeynayay marka 30 cisho waa bishii oo bishii lagu dhuftay 360 ayaa ka soo booday marka haddii aynu highlight saarno oo aynu sidan soo jeedno waxa weeyaan dhammaan waa 8 example 8 shaqaale ayaynu example soo qaadanay 8 qofba waxa noo soo baxay gross salary-goodii baa noo soo baxay marka waan cashuuri doonaa markaan cashuurina waxaan tegi doonaa waxaan qori doonaa equal
marka equal qorno if baynu qori doonaa waa haddii if waxa noqonaysa waa haddii marka qows baynu furan doonaa gross salary-ga aynu click garay doonaa marka waxaynu taaban doonaa calaamadda ka weyn if waa haddii uu ka weyn tahay amba ay leeg yahay mushaharku qaadanaya $100 waxaynu ku cashuuri doonaa gross salary-ga mar labaad click garaynayna oo lagu dhuftay 5% oo cashuura 5% oo cashuura ayaan ku dhufan doonaa haddii uu $100 ka yar yahayna mushaharka wax 5% lagama qaadan doono marka imika wata formuladani waxa weeyaan haddii mushaharku qaadanaya $100 ka badan yahay amba leeg yahay waxaa lagu cashuurayaa waa 5% haddii uu ka yar yahayna waxa 5% oo cashuura kama qaadayno marka imika formuladu waa halka ka muuqata marka enter bayn siinayna imika ninka waxa ku waajibtay $720 oo cashuura waxa buu maqnaa 10 cisho 10kii cishana $10 ayaynu ku qanaxnay $10 ayaa lagu ganaaxay iyadana waxa hormarin noo siinay oo lacagtiisii hormarin uu qaatay waxa weeyaan $400 ayaan hormarin siinay $400 ayaan hormarin siinay $400 baan hormarin siinay net salary-giisa marka la soo saarayo net salary-ga marka la soo saarayo waxaynu ku soo saaraynaa net salary-ga waxaynu ku soo saaraynaa equal markaan taabano waxaan odhan doonaa gross salary-ga oo laga jaray cashuurtii oo laga jaray charge-kii la ganaaxay oo laga jaray horumarintii intii horumarin ee lacag ah ee la siiyey ninkaa la yidhaha Farxaan Maxamed Jaamac waxaan horumarin siinaa $400 marka net salary-gu wuxuu noqonayaa oo qaadanayaa equal bayn siinaynaa $103 oo lacaga ayaa uu inagu leeyahay $103 oo lacaga ayuu inagu leeyahay ninkaa la yidhaha Farxaan Maxamed Jaamac haddii aynu soo saarno Cismaan Yuusuf Cabdilaahi in cashuuri ku waajibtay in kale equal bayn taabanaynaa if baynu qori doonaa qaacidadii qows baynu furan doonaa sidii oo kale waxaynu click garayn doonaa 360 kadib deetana waxaanu qori doonaa calaamadii greater than equal-na waynu qori doonaa deetana $100 ayaan qori doonaa dot baynu taaban doonaa mar labaad bayn click siin doonaa markaa gross salary-geennii markaa waxaan ku dhufan doonaa 5% ku dhufan doonaa marka wata formula 0 baynu kusoo xidhaynaa marka waxaan odhanaynaa haddii lacagtu qaataa ay leegtahay $100 amba ka badan tahay waxa ku waajibay $5 oo cashuura haddii ka yar tahay lacagtu qaataa $100na wax cashuura kama qaadi doono marka enter bayn siinayna marka sheekani $18 ayaa ku waajiba cashuur $18 baa ku waajiba marka intaan halkaa qabano ayaynu soo jiidi doonaa halkaas in tagaynaa markaas ayaan soo jiidno imika tusaale ahaan lambarkaa waxa weeyaan Caashi Axmed Cabdi waa cleaner 4 saacadood bay shaqaysaa 0.5 bay saacad ku shaqaysaa $60 bay qaadatay gross salary-geedu wax cashuura lagama qaadin inta kale cashuurtoodii waa ka soo saaray marka waxaan odhan doonaa charge-ka ninka la yidhaahdo Cismaan oo kale waxa lagu ganaaxay $15 baa lagu ganaaxay wuxuu horumarin qaatay $15 baa lagu ganaaxay horumarin wuxuu qaatay wax horumarina $306 oo lacaga ama $300 waxa baan nidhi $20 ayuu qaatay $320 ayaa qaatay
net salarygiis muxuu noqonayaa net salarygiis wuxuu noqonayaa equal wuxuu noqonayaa gross salarygii oo laga jaray cashuurtii oo laga jaray charge-kii la ganaaxay oo laga jaray lacagtiisii horumarinta marka intervention doona $7 oo lacaga ayaa net salary ah $7 oo lacaga waayo 300 iyo wuxuu qaatay 360 ayaa mushaharkiisa ahaa 18 cashuur waan ka jarnay $15 waan ka jarnay waxa kale aan ka sii jarnay waxa weeyaan wixii horumarin loo siiyay $320 marka net salarygiis wuxuu noqday 7 haddii aynu miskiinkan kale 360 buu qaataa 360 kiiba isagana waynu qadinay amba waxaanu siinayba 370 bayn siinay dollar waxaan ku ganaaxnay $12 baa ganaax noqotay $12 baa isaga ninka lagu ganaaxay waxa hore loo horumar loo siiyay $370 oo lacag ayuu haystay $370 lacag aynu horumarin siinay net salarygiis marka muxuu noqonayaa net salarygiis wuxuu noqonayaa equal gross salaryga oo laga jaray cashuurtii oo laga jaray intii la ganaaxay oo laga jaray $370 horumarina uu haystay horumarin $370 buu horumarin haystay marka interventionina marka ninka waxa lagu leeyahay $40 baa lagu leeyahay minus buu ku jiraa ninkan kan $40 baa lagu yeeshay isaga haddii sidoo kale aynu xisaabino geelle cabdi cismaan waa $270 buu qaatay gross salarygiisa $13.5 ay noqotay cashuurtii charge-kina waxaabay noqotay $8 abaalmarina waxaaba la siiyey horumarina waxaa loo siiyey $100 net salarygii marka muxuu noqonayaa net salarygii muxuu noqonayaa net salarygu marka wuxuu noqonayaa haddii aan soo saarnay net salary waxaan ku soo saarnay waa equal gross oo laga jaray cashuurtii oo laga sii jaray intii la ganaaxay oo ah $8 oo laga jaray horumarintii $100 loo siiyey $100 buu horumarin haystay marka intervention wuxuu lacag yeelanaya waa $148.5 ayuu ninkaasi waxa net salary amba lacagtiisa salaryga net salarygiis mushaharkiisa dhabtii intaas u noqonaya marka inta laga jaro iminka tusaale ahaan waxba lama ganaaxayna taa wax cashuura lagama qaadin wax ganaaxana lama siin waxa horumarin loo siiyey waxa weeyaan $30 oo horumarinay haystay $30 oo horumarinay haystay marka muxuu noqonayaa net salarygeedu wuxuu noqonayaa gross salaryga net salarygeedu marka muxuu noqonayaa net salarygeedu marka wuxuu noqonayaa gross salary laga jaray waxaan cashuur ahayn laga jaray $0 weeyaan marka $30 laga jaray muxuu noqonayaa wax net salarygeedu marka muxuu noqonayaa $30 waayo $60 bay haysatay $60 ay haysatay inantaasi caasha axmed oo qaybta cleaneriska waxay sii qaadatay 4 saacadood u shaqeynaysa 4 saacadood saacadiiba waxay ku shaqeynaysay $0.5 gross salarygeedu wuxuu ahaa $60 wax cashuura lagama qaadin wax ganaaxana lama saarin oo waxa ma jarin wax horumarin loo siino $30 net salarygeeduna $30 buu noqday iminka haddii soo saarno safa cismaan geelo kale waxa la ganaaxay waxa weeyaan $6 horumarin waxa loo siiyey waxa weeyaan $300 net salarygeedu marka muxuu noqonayaa net salarygeedu 42 buu noqonayaa markaan eegno 6% baa la qaraacay $6 baa la ganaaxay 300 la qaadatay waxaana la siiyey waxa weeyaan $42 baa u noqonaya ay yeelanaysa $42 ay yeelanaysa $42 ay yeelanaysa haddii aan xisaabino tusaale equal waxay gross salary laga jaray cashuurta laga jaray
charge-ka laga jaray $300 equal waxay noqotay $630 $630 ayay yeelanaysaa $630 bay yeelanaysaa waxaaba sheekhaasi in badan ba iska maqnaa isaga $20 baa la ganaaxay wax ganaaxa horumarina waxaa loo siiyey waxa weeyaan $180 net salarygiisa marka muxuu noqonayaa $20 waa la ganaaxay horumarina waxaa loo siiyey waxa weeyaan $180 wuxuu noqonayaa haddii aan xisabnay walba taabanaysa waxaad oranaysaa net salary oo laga jaray cashuurta oo laga jaray charge-kii ganaaxa oo laga jaray horumarintii la siiyey marka equal $90.70 ayaa uu yeelanayaa sheekhaasi sheekhan oo kale waxaaba nidhi waxaaba la ganaaxay waa $16 horumarina waxaaba la siiyey $180 horumarin ba loo siiyey isaga $180 horumarin ba loo siiyey marka $16 baa la ganaaxay $10 baa la ganaaxay bay nidhi $10 ayaa la ganaaxay marka $10 la ganaaxay $10 baa la ganaaxay 180 kiina horumarin baa loo siiyey cashuurtiisu $9 bay ahayd cashuura $9 baa ku waajibtay cashuura $9 baa ku waajibtay marka ay kolba taabanaysaa marka waxaan leenahay $180 laga jaray $9 cashuura $10 oo ganaaxa $180 oo horumarina marka ay kolba siinayna $19 ayuu ku jiraa oo maynaysa sheekhaas oo kale wuxuu ku jiraa $40 oo maynaysa $40 oo maynaysa ayuu ku jiraa haddii aynu casaan marino ka marino waka marka iminka waynaga iminka shaqaale xisaabinay waa warshada caanaha geela samaysay ee Somaliland tusaale aynu soo qaadanay marka tusaalahan soo qaadanay waxa weeyaan warshada caanaha geela samaysa ee Somaliland xafiiska shaqaalaha warshada caanaha geela waxaan xisaabinay marka waxa weeyaan employee name-ki waa kan halkan ka muuqda sidoo kale job title-ki waa kuwa halkan ka muuqda job title-kiina waa kan halkana waxa ka muuqda hours saacadaha shaqeynayeen ma halkan ka muuqda qof kasta saacadu shaqeynaya waa rate per hour qof kasta oo shaqeynaya saacadii intuu qaadanayay iyo gross salary-gi iyo cashuur gross salary-gi waan soo saarnay taxation-ki cashuurtii waan soo saarnay waxaan kaloon soo saarnay waxa weeyaan wixii ganaaxa ee laga qaadayo qofka maalmo jara qofka iska maqnaado qofka aan fasax qaadan oo kale waxa kaloon soo saarnay wixii horumarinaya lacag la siinayay waxa kaloon soo saarnay waa net salary-gi inta u soo xaasil garowday marka intaasoo dhan laga jaro marka cashuurtii laga jaro marka charge-kii laga jaro marka horumarintii laga jaro qof kasta total amba net salary-giisii waa kan net salary-giisa qofku qaadanaya waa kan net salary-gu qofku qaadanaya waa kan net salary-gu qaadanaya waa kan marka imika waxaa sida qaabka lagu xisaabiyo waxa weeyaan excelka qaabka shaqaalaha lagu xisaabiyo monthly-gooda marka bishii lacagta markaa siinayso qaabku shaqaynayo iyo wuxuu qaadanayo iyo sida loogu xisaabiyo excelka shaqaalaha ayaan halkan imika ku baranay intaan casharka xiga soo gelin doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu